qaar ka mid ah haweenka ku jira baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliyeed ayaa shirka ay ku qabteen magaalada Muqdisho maanta waxa ay ku cambaareeyeen dilkii foosh xumaay ee magaalada Kalgacyo lagu geystay gabadhii 12 jirka ahayd. dilkii ma ahayne waxa sidoo kale gabadha loo geystay kursi wala jirdilay qayb ka mid ah xubnaha jirkana wala bixiyay. arintaas baleeda daawada sida ay ugu hadleen haweenka ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaan u tacsiyeynaa qoyskii ay ka dhalatay hooyadii dhashay wax loo dul qaadan karo maahan aadan uga xunnahay waan ka qiiroonay waan ka tacsiyeynaa kun iyo kow jeer waxaan codsanaynaa in cadaaladda dadkii geystay dhibkaas la horkeeno. waxaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqaynaa xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedyada in gacan bira lagu soo qabto nagar qabayaashii geystay dhibaatada baaxadda leh. looma dul qaadan karo looma adkaysan karo in maalin walba tacdiye intaas la eg loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed. baaqaas waxaan u jeedinayaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka in cadaaladda la horkeeno maalin kasta in dhibaato inta dhacdo iyadoon laga gaarin wax natiijo laga soo harana looma dul qaadan